maxaad shabakada caalamiga ee Boorama News Radway ula soo xidhiidhadu sheegaysaa waxaan u sheegayaa iyadoo shalay iyo maanta uu tartankii iyo dhaqanka gobolada lixda gobol ee Soomaaliland uu ka socday aana soo galay kaalinta koowaad si cadna lanooga qaaday oo loo siiyay gobolka Togdheer Radwa Maxamed Cigaay waxaad noo sheegtay inaad tartan ka qayb gasheen oo aad hogaaminaysaan kooxdii Cabdisilimo ee lagu yaqaanay Sayliciga bal hadda dadka fahansiiso tartankan maxaa uu ku saabsanaa Radway waxa uu ku saabsanaa ciyaarihii iyo dhaqanka ee Soomaaliland iyadoo lagu tartamay ciyaaraha Sayliciga sida ciyaarta Jandeerta oo kale iyadoo oo ciyaar Sayliciga oo aad u qurux badan oo nu hayno muuqaaladeedii oo dhan aan duubnay iyadoo oo qoladii Jandeerta ee burco ee maanta la siiyay kaalinta koowaadna aan nu hayno iyadoo dhammaystiran ciyaartoodii oo soo duubnay aanan soo gudbin doono maxay Boorama News iyadoo muuqaala shirka iyo umada daawanaysa ayagu kala saari doonaan cidii ku guuleysatay aad iyo aad ayaan uga xunahay ciyaarihii tartanka ee aanu gaalinta koowaad soo taagnay maanta wanayda kaalinta labaad baa gashay waayo Radway bal Radway waxaad noo sheegtaa horta xarintee lagu qabtay tartankani waxa lagu qabtay Mansoor Hotel baa lagu qabtay waayo garsoorka yaa garsooray bal garsoorayaasha iga waran garsoorayaasha wuxuu ahaa busi oo ah hobol aynu wada garanayno iyo ayay wayab iyo cadiyada saddexda garsooray ahaayeen saddexduba dhalashahan halkay ka soo jeedaan Radway waayo markaad inagu tartankii gashaan aad inagu guushii isbedaysaan hadda maxaa isbedelay oo dadka u sheegaysaa aad leedahay waxaasa isbedelay oo waxaasana noo cuntamina meeshii naga soo baxay wallahi anagu kaalinta koowaad dadkii daawanayay gobolada Soomaaliya ilaa shalay maanta way hambalyeeyeen gadaaf anaga goboladii kale u fadhiyay maanta inay ku guuleystaan gobolka Awdal aad baa loo yaabay wixii halka ka dhacay kalena lama qabin dadka farsoon baan u waanaynaya ciyaarta Sayliciga waxa la garanayaa inay kooxdan Cabdisilimo koox anan cidi haweysanaysa ahayn sida aan inta badan aragno ciyaaraha aad soo bandhigtaan maxay kooxda kale ku qaaday baad oran kartaa ma ciyaar Sayliciga iyagu Sayliciga inta la hubo Sayliciga galbeedka laga ciyaaray bariga lagama ciyaaro oo ciyaaro kale waa la oran karaa way ku gali karaan tartanka laakiin hadii ciyaartii Sayliciga ay tahay maxaa bedelay oo kooxda Cabdisilimo ka qaaday soo oran kartaa anaga markii hore waxay nagu yiraahdeen Hargeysa Sayliciga ay ku tartamaysay Saylicigana gooni baan u qiimeynaa Jandeertana gooni baan u qiimeynaa xataa Jandeerta deereela kanada ciyaar Jandeer oo qurux soo bandhigay sidaan anagu islaay yaa wax isbedelay ma garanayno markii dambe aan garsoorkiis qabsanayna waxay nagu yiraahdeen ciyaalkaanu kanadinayno qiimeynaa ciyaalka maxay sideeda kala loo qiimeeyaa oo damiya tuuga u qurweeda hada ciyaalka eegteen ciyaalka ciyaarta loo gowracayo Sayliciga Afrika waa soo galay dawladii dawladii si aad u soo galay miyaa maanta la oran karaa dad baa Jandeerka ka qaaday ciyaala waa wax mustahil geli karay marka maxaa lagu raali gelinay markay niga leeyeen caruur baan raali gelinta wallahi saate la wiiradeen wallahi ragii ilaahay garsoorka u fadhiyay kolkaan soo joogsanay caruurta ayaanu ku raali gelinay tawaada ka inta weeyaan tartanada inta badan la qabto muddooyinkan ee madaxweyne Siiraaya talada uu hayo Radway waxa soo baxaysa in wax kasto tartan la galo deegaanka madaxweynuhu ka soo jeeda qaaday leeyahay haday tahay wax barashadii haday tahay tartanadii haday tartan kastaba tahay ma u muuqata kuwan tartanadii hore loo arkayay bulshadu u arkaysay madaxweynaha lagu sharfayo in deegaanka madaxweynaha lagu sharfayo wallahi anigu ma taama qabo waxa weeyaan garsoor baa meesha la dhigay waxaan u aanaynayaa oo kaliya uu noo eed saaraya saddexda garsoor ee meesha fadhiyay ayaga un bay ku qooban tahay shacabkii meesha fadhiyay kuma jirin xukuumaddu kuma jirto waa saddexda shaqsi ee maanta garsoorka laga dhigay ayuu baasan sameeyay sida aniga ila egtahay waayo Radway see la isku aamini doona oo tartano dambe looga qayb gali doona marka tartankii cid ku soo baxday cid kale lagu abaal mariyo lagu raali geliyo maxaa ka dhalan kara baad isleedahay maanta tartanka reewda la afduubay wallahi horta taasi kalsooni darey guriga xataa maanta markaan xaroonaa lagu xaniyo dadka dababa iman mayno waayo de kalsooni darey baa imanaysa marka la tartamo ee dadka la isku yimaado qof wuxuu boostay la sii waayo dahaa qofka kale niyad waa ku imanaya waayo dad aanan ciyaartii Sayliciga iyagu aanan sida kooxda maxay Cabdisilimo aanan ku caanahayn markay tartan qaadeen maxaa ku dhacaya kuwii tartanka qaaday ma laga yaabaa in dib dambe ay tartan u galaan waayo qofku markii soo guuleystay laga dhamaad guuleysan maxaa meesha ka soo baxaya marka
والله عروس وين يسمين ما أنت هذا ما أنت وين يسمين أنا جيب أنا يسمين عروس لأني يسمين وين تواني مثلا العيال في كاركم إذا إن شاء الله واني من ضمن قبل كينا وانا كان ضمن لبدي عيارات بيجوا يتفضل صعنا يلا ما كان مقالبة يلا دورس أنا دي صوتنا هذي لا إله وياي إمك قبل ميت كم إذا يدي مجلس أنا يشك مجلس وصدحان يشك بلال جمال عبد الله عمر واحد كم انتهى كواحدة عبد السلام بان بل واحد يقول انت وحي ماشي كده عي ولا طبعا قبل ولا عبد السلام ولسه تمشي عروسه طبعا فاضل لنا قاعده بتورد هي طبعا ماشي كده عي واحد عند الرادي فاضل دمان ما تشرب في الناس زوجته يعني ده هو شرع يقول هذه الا لما كي درسات يعني في عداله الرادي يسميه لكن وقطع عينه على السمين عينه عين من يكون من يقوم خاضر على كل حوله أسوأ ما يا الله تصابينه هي قبل ولا هذا مركز ويا هذا مركز عيارته يدي كم ده أضوح أن أي كوجود عين محاولة الكسر بحدونات وملاين ساد ترتن دمبو ولا يسقي ما ده لقى قيب قلا أنا وريها حرب على كمناطة أنا ده محرر أوضح أنا بستثمر إنه حنا خلاص وأنا نسكت خطيبين دونين وما أنا مريض ولا أنا بستثمر إنه حنا بنجرم وحنا رسوق على الضغط هو كان سلمان نلوه فينا بحلويا وش كان تقول ده نلوه لكن هو كعبين أنا كان تقول أنا نقول وحلا إيش جينا دنيقو عيارة السيلي قاعد كتر تميزان لما أنت خمسة كده كاف كمان خلاص كيريو حالة تقول هذا حكيت كده يارا الله يخرج يارا السيلي ويا واحد كخسر يعني مثلا العاد عندها شيء في حته في هي او واحد منهم كخسر ده بيده يجي جاب صار هو كخسر ciyaartan jaandheerta lagama ciyaarasa la sheegay deegaankan Deebraco oo ciyaar saylicigana iska bada hadalkeega laga garan maayo oo deegaanka ciyaarta jaandheerta waxa lagu ogyahay in laga ciyaaro magaalada Laascaanood iyo gobolka Sanaag gobolka Sool halkeeba laga keenan loo oran kara dadkan ay ciyaarta way ku qaadeen la leeyahay walaalo oo say ku dhacday anagu waxaan isleeyahay hawshan waa hal oo dalsoodu ka dambeeyay waa cadaalad qaraxa gobol waxaan u dhaqanin hayn kaalinta koobaad u galay waxay waa hawl dalsooda ay ka dambeeyeen baatina cadaalad maaha heer labaad anagu dalsooda aan isku dhaqanay waa inuu saarnay waxay loogu jawaabeen waxay ku reebeen naftiisa iyo taan iyo ciyaartiina maaha laakiin ay ka jawaabi diidan waxay nagu reebeen ay sheegaan idinku imiga maxaa idin la gudboon Saudi wasaaradda hidiya dhaqanku ma jirto oo iyadu qayb kama ahayn wasaaradda ay dhaqankiyo waxaan soo xeleeyay waxayadu xawlaha si ay koob tahay ma jirto akaadimiyada waxa waday u baa ka dambeysay cadaaladda meesha ka dhaxaysan aniga ayaa soo abaabulay tartankan ayaa nala taxameeyay ciyaarnimo awlaadnimo baa lagu siiyay laakiin meesha kale waxa weeyaan anagu goboladii kale ciyaarnimo kuma soo qaadin ciyaarnimo kuma leeyahay waxaan ku raadinay wixii iyo jaamacada wixii dhaqankayga ahaayeen ugu hibo waxa yaa tartankan shirkadda hay'adda soo abaabushay tartanku waa iyo walaal hay'adda soo abaabushay waxay dhaameen mas'uuliyiinteedu markay cadaalad daradan arkeen maxay yiraahdeen dad la yaga fankii bixinayay مسؤوليات واحد أو حتى صار عشان واحد صار طالع من بمدير إنه إذا قبل إذا يسميه كانت قبل أنا واحد مش لاحق قبل قاعد وقبل صوت حياة يروح يأكل واحد يشتغل إذا قبل قاعد كانت قبل على داود الورئيسgaasi waxaanu ka qaadnay Radwa Maxamed Ciga oo ah gudoomiye ku-xigeenka ururka qaranka ee haweenka ee Now ee gobolka Awdal iyo mid kamid ah dhalinyarada sayliciga ciyaarta ee kooxda Cabdisilimo oo iigu waramayay khadka telefoonka oo shabakada Boorama News kala soo xiriiray iyagoo ku sugan magaalada Hargeysa kadib markii tartan ay ka qayb galeen ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigay oo ay kaalinta koobaad ku soo baxeen natiijadii iyo qiimeyntii hore wixii ka dambeeyayna waa siday hadalka u dhigeen iyagu yahay garsoorayaashiis daba mariyeen oo deegaanka Burco lagu sharfay waa siday hadalka u dhigeen dhamaantiin aad baad mahadsantiin Boorama Newsna waa